السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسكين كي مسكين عاوي أضوى برتين برنامج شطي له من أول بالدنيا على ذا جوكتي سودواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودواد أصحابي ومسكين كي مسكين عاوي أضوى برتين برنامج شطي له من أول بالدنيا على ذا جوكتي سودواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن ربعنا إن لو ذاقوا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo laba guul oo waaweyn gaaray kadib markii mucaaradkii iyo kuwii maamul goboleedkii oo ka dhex siibtay waa guusha koowaad warbixinaya in kaga haya dagaalkii Camaara ee gobolka Mudug ku dhex maray ciidamada dawladda oo isgarabsanaya Galmudug iyo shabaab. warbixin ayaa in kaga haya lixdan dhalinyaro shabaab ah oo lagu dilay dagaalkaasi. warbixin ayaan kaga haya iyo technico 12 gaariya qaar laga gubay qaar nolosha loo qabtay. warbixin dhameystiran ayaan kaga haya. soo dhawaada meel walba joogtiin. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada 30 daqiiqo ka badan ma ku jirayo. waa barnaamijyadii kaambeynka madaxweynaha weli noo socda meel fiican noo maraya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. shaqadii madaxweynaha oo noo diray isxilqaamkiina magaalada Muqdisho ayaan ka bilaabi doonaa Friday wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaan dhismo ku bilaabi doonaa oo gaadiidka iyo bajaajleyda iyo dadku ay dhibaato ku qabeen insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. waana amarkii madaxweynaha maxaa yeelay haddaan nahay dhalinyarada dawladda taageersan waa maasanta walaalkii macaan dhalinyarada dawladda taageersan waana dalkeeni dhisana. waana amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. soo dhawaada meel walba joogtiin. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maya cabdinaasir warbixin ayaan kaaga hayaa. baabuurta iyakaa laga qabtay shabaab ma qabsan. dhowr baabuur waa laga gubay dhowr baabuurna gacanta ayaa lagu qabtay. warbixin ayaan kaga haya dagaalka Camaaro iyo caawa ciidamada dawladda oo deegaano hor la ku sii shaqeeyay. warbixin ayaa in kaga haya. soo dhawaada meel walba joogtiin. waxaan leeyahay assalaamu calaykum. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya laba guul oo waaweyn ayuu gaaray. mid waa guusha koowaad oo uu daaqada ka fiirsanayo ra'iisul wasaaraha waxa uu walaaqay. maxaa ku kallifay ra'iisul wasaaraha inuu ku dhawaaqo maamul goboleedyada oo haddana ay diideen mucaaradkii Sheekh Shariif iyo Xashiiq nooma iman karaan ayaa la qaybna kama noqon karaan. wuxuu taageeray in ay shir ka qayb gelin. wuxuu kaloo taageeray in bayaan ay wataan maamul goboleedyada oo ogolaado in maamul goboleedyada ay walaaqdaan cidda ay rabaan ay keensadaan. taariikhda ayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayay u gashay in dalkan maanta la rabay. uma malaynayo in haddii maanta Rooble la bedelo ninka imaanaya in uu dalkan bool ku siiriday. uma malaynayo. Rooble khabiir dalkan siyaasadiisa la socday ayuu ahaa laakiin bool ayuu caaw ku riday. laakiin booshaasi tii Ilaahay ka weyn. markuu shirkii dhamaaday isla habeennimadii ma nasane. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما نصنع إسلام معارضك أي شر ليه شيء أو شر دق مركي بيان صو صارين. معارضكم محير رادين يا شيخ شريف يا عشيق يا عبد الرحمن عبد الشكور محير رادين يعني محير رادين يعني دور شيء ما مولان بقول يصدن يشنتي أضيال إتوجده مسماس وقدري حارانت إسكعون الجري حلوان كيربان إسكدي متكيربان يمسمين سجرين أي الربان وحي الربان دولدنا وحي ربطها إن قدك الدور الشوينك مدعوين محمد عبد الله فرماجو وحور ربان إن قدك الدور الشوينك هير فضلالي هير مامول قبل لود أي دور الشوينك دلك إيكو إي مامولا والدولد هو قامني مدعوينها جمهورية الفضلالك الصومالية مضاني محمد عبد الله فرماجو الله حفظه. مامول قبل هذا وحي الربان وحي ولا قضان أو إي ربان إني صو صارتان فرتاج إيه باستوكر وركي يزيف عون دقيست فرتاج إيه باستوكر والله أقرأ هذا حالة كومات فرماجو وعكو فرماجو لما تقولش وقارن واحد تاي إن ولي نمكي معارض كي أي سقي في السنيان وقوش ربط قوش جود واحد إنه ضاقت كفير سنة واحد صعد ولاقى أي وضعان مامل قبلات الدلك ولاقيان ساسو ولاقيان إنه ضاقت كفير سنة جيس داري
landheere banaanka degi ilaahan ku dhaartee waxaan ku jeclaaday waan ogahay waxaan ku jeclaaday wallaahi wabilaahi watallahi ayaa ah in uu yahay muwaadin dalkan iyo dadkan anfacay maxaa yeelay anigaan ma imaadeen dalka oo shaqadeedu ma soo beeldareeyeen umana imaadeen inaan dalkan iyo dhallinyaradan iyo fikirkaas aan la imaado oo waddooyinka inaan dhiso annagoo kama tarjumana dhallinyarada xisbiga talada haya ah inaan magaaladii dhisno inaan deegaanadii dhisno inaan waxaa sameyno warkayga si fiican u dhegeyso rooble marka laba darar mid dooro heshiiskiina waa seexay nimankii mucaaradkii laakiin hadda waa la qanciyey wararka aan helayo mucaaradkii waa la qanciyey wax lagu qanciyey wax ka walaaqdaan maanta ii sheeg nin mucaaradkii waa la qanciyey maxaa lagu qanciyey inay baasha wax ka walaaqdaan warkay si fiican u dhegeyso baasha dheriga soomaalida waxay tiraahdaa dheriga markuu gacan bato oo fuul qaraadaa gabadhaan badarka karinaya haddii loo daayo wuxuunay keenay ama cusbada ku badato ama cusbo la'aan keento ama badar aad u macaan badan keento iyada ayaa iskale laakiin markuu cid walba ay walaaqdo waa iska foqwadgalaanay odayaashii waaga ku bariyay waxaa la yidhi 135 oday alla ordisiin cid bini aadan farmaajo haddii la weydiiye ma rabo shacabka soomaaliyeed ma rabaan maamul goboleeda ma rabaan yaa rabaa liyi marka idinka lay rabo adar iska dhaqaatani ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi arrintan maamul goboleeda dalkaas soo jeediyey waan weydiiyey su-aasha waxay yidhahdeen annaan ku qanacsan 5 maamul goboleedba waxay yidhahdeen oo cumar furis ku jiro in gobolka Puntland xataa baashar iska wada awrada si fiican dhageys oo ogolaadii iniga marka tala ay siinayaan ra-iisul wasaaraha dalka tala ay siinayaan yiri baasha ka walaaq baashan tuugada ee la walaaqanayo wax ka walaaqda odayaashii waa yiraahdeen waxba kama qaban karo roob waxba kama qaban karo wax uu ka qaban karo haba yaraatee ma jirto ninku talada maru lahaa waxay ahayd inuusan iskugu yeerin inuu faraha ka qaado shir hadday yiraahdaan bal warkayga si fiican u dhegeyso shir hadday yiraahdaan inuu yiraahdo adar ma imaanayo guddiga doorashooyinkana u seexo guddigii doorashooyinka heer federaal cirro go-aanka uu soo saaray dhan waa la baaba'shay ma jiraan waxaa loo madax banaynayaa guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa doorashada maamulanaya orgooyinka marka aniga haddii guddoomiyihii sheeg maxaa la yidhaahdaa uu qoorqoor watay aniga guddoomiyihii odagaygaa ee rabay inuu dadka ii doorto la saara mid kale la geenaya oday kalea la geenaya booska lagu bedelaya waxaa la rabaa aqliga inuu shaqeeyo oday kalea booska la geenaya lagu bedelaya meelaha ka doodid male marka war anaga odagaana wadanaa ree hebelaanahay war ree hebelaanahay war anaga reer laandheerayaalaanahay odaygeeni waa kan nabadoonkeeni waa kan cid bini aadan oo kaa yeelaysa malcadar ninkaan aniga wataa shaatigaa loo gelinaya odayaan shaati lahayn shaati loo gelinaya lacagaa loo ballan qaadaya anoo meel iska fadhiyaa la imaanaya waxaa leeyahay odagaas ayaa booskiis kugu bedelana doorashada waxaad ka maamulaysaa warkaygiis doorashada waxaad ka maamulaysaa lacag iska qaada suudna waa lagu gelinaya yaaba heli karaa war odagaas awalba na hortaagna igee anaa la igeenaya marka ismaaciil maxamuud shidane beesha hebel ka socda dowladda guddoomiyihii guddiga doorashooyinka waa soo dhoweeyey isagaana kursigaas matalaya beeshaas ku matalaya war dadku waxay leeyihin war odagaan meesha ma wala yaqaanay odagii beesha waa kaas odagii beesha idaacadda u yeeran yaa dhegaysanay idaacad maahe kaalay kuwii gabdhihii iyo wiilashii laga soo celiyey kismaayo ee xildhibaanimada aqalka sare rabi gabadhii waa ujeedda wareysigeedii ninkiina waa ujeedeen inay niisa tilmaam soo geli kartiin albaabka haddana kismaayo waxaa laga bilaabay in la yidhaahdo hub ma qaada kartiin musharax meesha goobta doorashada ama kismaayo hub ku dhex wadan kara ma jirto micnaha waxa waaye ciddii la rabana hubkaa laga dhigaa ciddii la rabana kii la jira axmedoobe hubku wadanaya kismaayo warkayga si fiican u dhegeysta kii axmedoobe la jirana hubku magaalada kismaayo ku wadanaa kii mucaarada ee farmaajo taageersan ee dal soomaaliyeed iyo nin dal soomaaliyeed raadiya ciidanku dhasho hubka tiri ware haddii kale laga qaaday caaw la weerari wallaahi bayaankaas soo saareen axmedoobe iyo kuwii la shaqaynaya kismaayo kii tiibishada qabay ee maraxaane ee madaxweyne ku-xigeenka ah intaba waxay soo saareen in kismaayo baawur lagu dhex wada karin warkayga si fiican u dhegeyso marka waxa waaye intii taageersan way wada kartaa intii taageersaneen oo la diidan marka in xaar la walaaqdo in lagu qanciyo sheekh shariif iyo caashiqi waxaa la yidhi ilaahay waa qafuur raxiim waana jadiid alciqaab ilaahay waana qafuur raxiim isagaana barwaaqada bixiya isagaana baahida bikeena warkayga si fiican u dhegeyso laakiin ku cimri qaata ayaa la yidhi sheekh shariif iyo caashiq markay farmaajo bursanayeen
وقان وقاري كريم وعيدي لهين ورانا كدل أقونسيا ناي دلك يا فيري أحمدوبي يبالك يشك دني وكوش قستن وفي أنتي صعد ولا شرنا نم في عناتين بس كان يعيب فرماج كبعدين ولا قسيت ورجع يصير في عون قس هالين أو حلبان أو مانتا اللي كرني مكان هبلي إسماعيل سكوجين كوي دني كوي أحمدوبي والشيخ شريف عطك سيني أم حشخ أم سم مد مجل حلبان هذا حتى أي مقعوان أيال الشيء إني نم نلخ الجيران والله وبالله لبني هذا وحلا أي شيء حس على غير تاجرسين أفرتيني كسب على كسماي لبا كان أي تاجرسين حس الشيخ محمد ببدي توفيق ماله وقت بدأونا جمهورية الفدرالية الصومالية مركز جوش وقال واحدة إنه كنا بحر روب لو ولاقيه يدني يوحي ولاقيان إمام القولاد وكسيت ده ذي كتلمته بدأونا فرماج شاشدو كداونية مركز يسمعون شاشدو كداونية guusha uu gaaray ayaa ah in uusan hal maalin bayaan ka soo saarin sharcigan hadda lagu heshiiyay mid dawladda iyo dalka iyo shacabka Soomaaliyeed anfacaya ma waa mid tuuga anfacaya tuugana ku heshiiyay warkayga si fiican u tuugu anfaca tuugu ku heshiiyay sababtoo aan xildhibaanka rabaan soo saaraya fartaagan soo saara hiblay kastooma soo saara frimbian soo saara xildhibaanka aniga rabaan soo saara waana ansax ra'iisul wasaaraha waa ansaxinay maalintii uu dani soo saaro waa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha wuxuu leeyahay waan doorashadii Puntland ka dhacday doorasho ma wallahi soo doorashayn iyo billahi tallahi waa walic hatta musuqmaasuq ma waa walic suuqata wartii xashi shiiqa doorasho liika ee dadka la farsameeyay in la yiraahdo Ismaaciil xilbaan ma taha xilbaan sharaxana arbacada imo isniina la jooga arbacada imo okay loo birka bacdi way soo diyaarinayaan odayaasheedu wixii soo ninkii la tartamay wuxuu joogaa madaxtooyada war xashiiqo ma hay iska dahay odayaal ka daba dirin odayaashu waxay ninkan xilibaan noo noqon maayo war odayaashan kugu dhigan maxay tobankan oday tobankan waa yimaadeen madaxweynaha 20 qaatari lacagta amre amus Ismaaciil nimankii ninkii waa la dheeri waxba kama qaban karo Ismaaciil iska joog xasan shiiqa naruura xasan shiiqi rooble diinta Allah isaar doorashada xashiiqa naruura waxa meesha lagu heshiiyay waa wax ka baxsan shariicada islaamka iyo muslimada iyo wax qof bini aadan u qaadan kara ma in la yiraahdo guddiga doorashooyinka korjoogtikiin malxiislayaal ka noqoneen malxiis mantaqana ee ka noqoneen shaashadii ka daawaneen saas intay u istaagaan waxa guddiga doorashooyinka maamulanay maamul goboleed dalka maamulanay warkay si fiican u in la yiraahdo cirra iyo korjoogto noqdo korjoogto ma intaas waxa la rabay in la yiraahdo cirra bayaanka soo saartay leedahay adaana doorashada maamulay doorasho ay guddiga doorashooyinka heer federaal ay sarraali ka ahayn ma la aqbalay amarkayga waa inuu yiraahdo guddiga doorashooyinka waxay soo saarleen rag ay qoonyahana oo dalkii dadka badbaadinay laakiin hadda waa licad oo loo wada jeedo ee la leeyahay dani waxa aragto qorqor waxa aragto kaas warkay si fiican u doorashadii xasan shiiqa dhaantay tan maanta lagu dhawaaqay doorashada xasan shiiqa wallahi tan qiyaane يعني شقيانو يضل لي بريال دورشة قبنا ونيك مدحتوي إسك هذا ولا دارنا أيه ونيك قبط يا دورت إسك داي وضيع شقل غير العيال سنجين والدورشة قيانة كجوت تقيانة ما واضح عدو أنت عن هذا توجني ما عد أو شريعة الإسلام كبح حسن أو ضلك لو دعيو نقول بتوجره مكان سنة بركي يصير فعون ليش عيد بني آدم وما أنت وحكي قمنا سنة إيه سجل مدعوين جمهورية الفدرالية الصومالية الدل كان بتبادني أنت أصلا بتبادني لمن توجا ماشي عم فريستو أفر لا ترسع كلك هذا والله جوك ترى حبذا بلابنس هنجمات مقالة قبسينا هي بلادنا كوك ونويا لا قبيلي ساتا أنا قولي قبيل كقولي تاجنا هوية أنا لمن ماشي روتال وكان سكها عبي يعني هوية تاج كعب عبي الدنيا أحمدو كعب عبي ورجع يصير فاونيس دنيا أحمدو بي ما لهكو جيان ما لهين جيان شيخ شريف يعيش شيخه يسمى مدري عبد الرحمن عشكره هين جيان بل أحمدو بي دنيا ما لهين جيان السن كلا إنك إسكالولي والله وبالله وطلع درشة صعته والله كتاب جامع معكم رأي إذا أنا مدحوين فرماجينا للدورين إسكال بعد يرجعين إسكال عد بني أنا وهذا ما يشكو ميسي طلعنا مليهين طلعنا متين ورهرتين يا علو غيب صديق نمكي أمنتين إني أمن درا مركز انشير انتي لين قبضت الفيديو اللي نكدونا عليه قدقي ما بالقبل نمكي معارض كاشري مع فايدين هذا
إلا إن يراد واحد ولاقنا وحكي ولاقنا مستقبل كين وحكوش صدام هذا نوع عاس والله وبالله وطلع مستقبل كين وحكوش صدام هذا نوع عاس إن دورشات وجدين أو ضلك يدك الغنائي أول في وحافي عن نك توجا وجدين كلهم نك توجا حماة مشكورة وجدين كلهم عافي عن لكن دني أحمد أبي يكون لو جدين إني ممكن ينتقي يعني إيران شرنا كمان سوق يبقى كلام دورشات أنا كماملنا مامل قبلي الدنيا ماملني اللي بعنا قصة بحي بوتلا نمان عدك السيني الشيخ شريف ما نمان عدك السيني حاج الشيخ ما ونمان وصل صارت السجن عدك السيان بالبدلان اللي بعنا إذا دام دعونا كنا منكرت دنيا واشطن مدحونا كنا قني والله وبالله وطلعنا ابني هذا نقدر ما يسوي دي خدي أد بالله لما تنحي اللي بعنا أد مدحونا كنا قني لا بقول شن بقول الدنيا قدامي أنا مدحونا قني هذا لما تنحي اللي بعنا كنا قني dad badan haday tahay anaa dad ka badan ana ka taageero badan warkayga si fiican u dhageys 20 inaad bilan ka soo saartaan madaxweyne ku noqona anay dooranay anay codka siinaya waa guushi madaxweyne farmaajo hadii maanta ishaag maxaa la yiraahdaa nimanka uu ka soo saaranayo dani Puntland iyo marka la isku daro Jubaland ay sadameen 350 xildhibaan maamul goboleeda Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ilaa ana ka taliyo gobolka Banaadir dani Axmed oo gobolka Banaadir soo saaray hadii soo saari karaan bal hadii raganimo yihiin gobolka Banaadir wallahi oo billahi oo tallahi hadii cabaadi waayeen ay dhalana bal fiirsaad koow laba saddex afar saddex xildhibaanaati waa isku dhamaatay roob la hadii duu diidi karo bal roob la duu diidi karo hadii waa la jooga magaalada waa la wada joogay adeer xaarkiina walaaqda شيخ شريف ينحركنا ولا إلا هذا أري أنا ملقي اللعبة مية بقولي صدر يشرع عرض ورني إني مكان واحد قاعدنا يا ماي وضياش سؤالنا ولا قتي ذلك هرمر وقال ويستاجع مدعوينين واسكدرين نمكي أي وجه كراسين ولو كرتي والرقي والله وبالله وطلع آمين مقلع أحمد وبي إيدني آمين مقلع نمن لا آميني كرو والله ما وركي يصير عونك نمن لا آميني كرو ما وريان نمكي بلان أفر إلى بعض الساعين شعيب من الليرات أو ما أنا والبدي يجري فرماج بلان وحوك ما قاعد يكت بلان وهذا لا دولة لا ما مولا نيكي بيجري هذا رالهم مدعتين وأنا ما يتقانا مي أنا كيف فرماج عيني وما صنتين فرماج عدا عيني اللي بانكو ماي الباب سيد كتك ألي وصل صار ترجع عسل وردني وحو آمن واي اللي ما نضي قربكوا آمن واي ما الشيخ شريف وآمنها مركي حاشي وآمنها وري كان واتشوكا كان واتشوكا لكن وحيني بلن قاضيان كلها سيدي عبد الرحمن عم شكرا انه عيب كلا تقدم وريق الكواد بإلا يراد وحاول ما يشكو ميسين مدحويني فرماجة مدوت أي عيب كل نقط أول يراد لابد بعض لابد عض عفر عض قبر وهذا كورو حلبان كده هل عض شيء قبر قرابي هني حاسك وقبر قلتي ولا ليس هذه والله وبالله وطلع الصوماليين يسيدورين والله وادعتي ضدك ما واحد مود يس ولا ندورنا مدحوين الصوماليين ونقونا أحمد أبي يدني يعني ممكن أدي تكان دكتور حبيب ضدك جرا أدي تكان دورتان ودورنا لكن قف أقوال لما أنت أو ما أنت وعي قدلك كجرا وجه حالة الدلك لما أنت قيماني دلك السوق كسعدنا كهلي سدح ذا والله إنه سدورين سدح ذا والله الله يوعد أبي إنه سدورين إنه حلال لغود علي إنه سدورين وواحد إربان حرام من لغود على اللي أبا هو يدا يشك مركور أنت بنانك تكسر مرسدين مركي يجيب عون يجيب يدا الأوجين إدي لوكم ليرا قبل أور ليرا أبي ليرا قبل أن إسك أسترونيك إسكسي وحساس لغود علي إن هذا تاكن سطح اللي معنا كده جت معه إسنك إلهي من حلال أو حلال لغود علي إنه صعد إني سينين والله أم بالله أنا كيمد أم الجبل أنا كيمد والله وأنت والله قف حلال لغود علي ما أنت وعي قدرك جرى ما أنت حالة قدرك قيماني ما أنت أنتاس أو كن أو حسود دقي تنجيل أو عيدك حوق قدرك الصومالي والله أنا بيشين معكم تنرى أي عيدك حوق قدرك الصوماليات أسود دقي وركي يصير عند دقيس أو أي كان ديارضو عيدنا أي كان ديارضو عيدنا أي كان أو عيدك حوق قدرك الصومالي للصيني وركي يصير عند دقيس عيدك يا اسمية دلك يا اسمية لما يردوا حيو سكتين دلك قيب كنقط عيدك يا لغو بيريا ما أنت دلك نوا أمني dhaqaalaheena waa fiican yahay dawladdeena waa shaqaynaysaa maanta qof wacyiga jira u jeeda
inuusan axmedoobe iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif inuusan waqti iskaga lumin wallahi waa dhartay wallahi laakiin meel layn ka dooran doctor xabiib haddaad digtiin waa layn dooranaya dad mentala oo maskaxdooda aanan fadhin laakiin nin maanta xildhibaan noqday ama gabar xildhibaan noqotay ilmaheeda mustaqbalkeeda ka fakaraysa xaaladda dalka u maraya ka fakaraysa ninaan isagana codka siinayn wallahi kitaab jaamaca ku mara warkayga si faacunigiis ninaan isaga ahayn waxaan ka codsanayaa inaad gaarsiidiin waa guulaystay waa geesi in loo abaalmariyo aaminsan yahay waxa socda kama hadlin waraaqad ma soo qorin miidiya ma tegin bayaan ma soo saarin ma diidin wixii soo baxay waxay ku tusay kalsoonida uu isku qabo ayuu ku tusayaa maxaa yeelay madaxweyne farmaajo wuxuu ku soo baxay xaaladii uu ku soo baxay cid walba ogtahay anaa madaxweyne farmaajo ayaa la guulaysanayaa maqni wacyiga dalka markaas ka jiray annagoo og in la yidhi caawo brito waay isheeg maxaa la yidhahdaa beri waay habeen dambe waay doorashadii caawo waay doorashadii hadday socotaa galabtana hotel ku yaalla magaalada muqdisho 220 xildhibaan lacag lagu siiyey annagoo yaaban oo aan u jeedin xaalad dalka u maraya musuq maasuq dhac shabaabkii iyo dowladdii oo kala gelin waay hoteelo la qabsanayo ayuu istaagay in uu u tartamo hal xildhibaan markhaati aan ka ah wuxuu deganaa elboorka ku yaalla marka elboorka loo socdo meesha ay degan yihiin nimankan ajaanibta guri ku yaalla waa soo guri hotel sayid guri ka soo horjeedu deganaa intaas muqdishaan joogo marka la dooranayo xildhibaano uu la shiray iyo midoo lacag siiyey wallaahi oo bilaahi oo tallahi ma jiro anaa goobjoog ah anaa gurigiisa tegi jiray warkayga si faacun dhegeyso wax dad siyaasiyiina oo raba inay boqdaan oo soo salaamaan la maahay wax lacag uu tegi jiro ma jirto wacyiga jira ayaa xildhibaanadii waxay arkeen xaaladda dalka uu maray in maanta dalkii uu u baahan yahay in la badbaadiyo waxay noqotay in codka la siiyo isagoo lacagna aana bixin warkayga si faacun dhegeyso maanta isagii intii la diido la yidhi heshiis kula geli mayno oo axmedoobe iyo deni ay dhexdoo xirteen wanaag hadduu la yimaado wanaag uu yidhahdo ininkaa in rabaa walaalahay inaad tihiin war dalkaana u naxan inay yidhahdaan madaxweyne ergaas hadda sheeg dalkaa u naxan cadow aan ugu tahay dalkaana u nixi mayno war maya dalkaa u naxan cadowaaba tahay haddaad tiraa dalkaa noo nax dalkaa annaga gadeen ayaa la yidhi adan heshiis kula gaari mayno iska tag ra-iisul wasaaraha la keenay ra-iisul wasaarihii la heshiiyeen waxay kula heshiiyeen cid walba way la yaabtay iyadoo heshiis la gaarin iyadoo murna ay dhicin iyadoo maalin shir lagu kala tegin shirkii ugu horreeyay markii la iskugu yimidba ii sheeg maxaa la yidhahdaa waxaaba dalkii ka dhacayba heshiis warninkan maxay madaxweynihii abdidiisa ninkan maxaa kula heshiiyeen 2 beri 3 beri madaxweyne ra-iisul wasaarihii ma dhicin khiyaanadii iyo wixii lagu heshiiyey ilaahay waa qafuur raxiim waana shadiidul ciqaab maanta ayay soo baxday in dalkan la yidhahdo doorasho nin waalan iska keenso nin waalan xildhibaan ka soo dhig micnaheedu waa intaas nin waalan keenso maslaxa keenso baarlamaankii tobnaa ee xasan sheekh uu soo baxay 3 walaa qaniisiina ku jira niman qaniisiina iyo naago qaniisiina ku jira waxaa ku jiray naagoo diinta islaamka ka baxay ayaa la keenay oo la dooray iyadoo la ogyahay ummadda Soomaaliyeed laga qarin diinta islaamka gabar intay miidiya istaagtay tiri anigu diintan mar kristanka ayaan qaataa baarlamaanka Soomaaliyeed ku jirta waxa dalkeena la ku cadaabay oo dadkeena u dhimanayaan oo gabdhaheena loo kufsanayo ee shabaabku noo qarxinayaan ayee bal warkayga si fiican u dhageysta wixii meeshaas ka dhacay waa la ogaa qof walba waa ogaa cid bini aadan oo iska hadasha male wixii la walaaqay oo la soo walaaqay ayaa waxay noqdeen qaniisiin iyo dad diinta islaamka ka baxay in gudoomiyayni baarlamaanka iyadoo la fadhiyo oo ajada loo fadhiyo gudoomiye maxada mana qabtaadi waxa hay maarti awi arti aan kala hadlani oo qaniisiinta aw dadku inay isguursan kara naga taga diinta muslimka Allah iga saar cidii mardan ku dhaqaaqadana miidiyaana xataa u sheegana waa ka wada hadlaani madaxweynaha golaha wasiirada waa ka wada hadlan waxaas mana la iimaan karo amarkayga waa mawduucaasna cidii keenta dadka loo soo bandhiga cid walba gabad hadduu maanta dhiilaahay ajendaha qaniisiinta laga dhigo dalkeena maanta barnaamij badan lagu cuni lahaa wax gabdheena loo afduumanay kaliya laga baxayo xalana laftigiisa in hadda ku sugan qaniisiin yaa cid bini aadan oo ma jiro baarlamaanka noocaasa maanta maxaad ka filan kartaa haddii ninka rabtaa keensan kartaa aniga gudoomiye guddiga doorashada aan keenay aniga gudoomiye madaxweyne maamul goboleedaha anaa maxamed isticmaalay maxamed ninkaa ilaad odag keen ayuu keeni karaa soo marka dad ma imaan karaan marka aan diinteena iyo dhaqankeennaba aan meelay ka soo galaan cooldoon waa aragta cooldoon madaxweyne somalilandna macin xaas somalilandna macin shakhsi somalilandna macin wadaadka somalilandna macin gudoomiyaha baarlamaanka somaliland macin
meel kalaaba oo dalkeenna iyo dadkeenna aan faa'iido ugu jirin oo ii sheeg waxa baarlamaankeena la rabay in laga dhameeyo inay ahayd in abaarso iskuulkeeda magaalada muqdisho laga furo qayb ka mid laakiin ragnimo ay ku furaan ma haystaan dowladdaana furi karin shacabka Soomaaliyeed u taag lafoodan waa u cabsanayaan in shabaabka isku qarxiyaan ha orgeysi facluus shabaabna waa ka cabsoonayaan ilaa horta halkaas nooga celin waxa uu xiraya maanta uma xirna Somaliland uma xirna ii sheeg dad Somaliland dimi kule guri islaameed uma xirna wuxuu Aldoon ku xiran yahay shariicada islaamka ayuu ku xiran yahay maxaa shariicada islaamka uga hadlaysaa ayuu ku xiran yahay qof walba aqli Soomaaliyeed lehna waa ogyahay waxaasa dalkeen la rabaa marka la leeyahay hala keensado oo cid daarta xilbaan ka soo dhigo waa waxa la rabo in dalkeen meeshas la gaarsiiyo in wadaadkii ka hadla fisqiga dalka ka dhacay Soomaaliyeed in la yiraahdo nisaa loo diro xabsiga la geeyo in la yiraahdo kalaabka meesha laga furiyo ayuu ka hadlay ninkaan la xiro baraha bulshada ku soo qoray wariye ka tirsan magaalada Muqdisho ama Suufi ayaa soo qoray hal xiro markay si fiican dhigeyso in Aldoon oo maanta diin arrimo diineed u xiran yahay waxyaabaha masiibooyinka dalka ka dhacay kamid ah wallahu soo xirneen musabbiix wallahu shaxaaskiisu xirneen wallahi Somaliland booliiskeedu inuu soo xirneen wallahi nabadsuguda Somaliland wallahi oo billahi tala inuu soo xirneen Aldoon wuxuu xiran yahay diinta islaamka u xiran yahay maxaa diinta islaamka uga hadashay maxaa diinta islaamka u bubuuniyay maxaa diinta islaamka u sheegaysaa maxaa diinta islaamka wax uga dhigaysaa warkayga si fiican dhigeyso Somaliland uma xirna Aldoon Somaliland uma xirna musabbiix ma xiran waxaa xirtay abaarso iskuulkeeda ayaa xirtay waana Somaliland masiibo ku tahay in shakhsi Soomaaliya oo diinta islaamka ka hadlaya in la xiro warkayga si fiican dhigeyso in loo xiro see abaarso u hadasho oo aan ognahay oo Kristan lagu baray oo diinta islaamka wax ka baxsan abaarso lagu dhigay oo wallahi oo billahi oo tallahi kuma naan Somaliland aan qana oo qaraabi dadan aan dhahay dadan wax isku nahay qabaan oo noo soo gudbinay oo dhahay dugsigaas waa sax waxa lagu dhigo waa wax sharciga islaamka soo horjeed culimada diinkii Somaliland waa la shiray madaxweynaha Muuse Biixi wax bini aadan oo ka qabtay mar wax ay ka soo saareen mar in Aldoon xoriyadiisa dib loogu celiyo ma jiro marka waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliya afka Soomaaliya ku hadashay ama Somaliland ha joogto ama Ethiopia ha joogto ama Kenya ha joogto ama dalka dibadiisa ha joogto waxaan rabaa inay sheego Aldoon uma xirna Somaliland wuxuu xiran yahay diin Kristan dad Kristan ah wuxuu xiran yahay sababta aad u sheegtay diinta islaamkana aad ii sheeg maxaa la yiraahdaa arabta ina u weynayso diinteena aad ka soo horjeesto wallahi oo billahi oo tallahi inuu soo xirnaa madaxweyne Somaliland wallahi oo billahi oo tallahi inay sheeg hadda aqoon leediin iyo haddayna aqoon leen Aldoon wuxuu xiran yahay shariicada islaamka xiran maxaa shariicada islaamka u buubuunaysa maxaa shariicada islaamka aad meeshan u keenaysa maxaa shariicada islaamka aad maalin walba u haysa intaas ku xiran madaxweyne Somaliland amru soo saar kuma xirna taliyaha booliska Somaliland amru saar kuma xirna amar abaarso iskuulka leey Kristan dadka diinta islaamka diinteena islaamka lagu nacsiinayo diinka loogu dhigayo ayaa xirtay oo ciidan u soo diray maxaa maalin walba ninkan iskuulkeena u xirna hal soo xir das shacabweynaha Somaliland waxaan leeyahay haddaad dad muslimtiin oo islaantiin ilaahay waa qafuur raxiim waana shadiid ciqaab Aldoon haddii maanta Somaliland ay xoog ugu faantay diinta islaamka xoog ku soo furas wallahi oo billahi oo tallahi diinta islaamka xoog ku soo furas waana xoogan lagu soo furanay ogaada ilaahayna raali kama in qof shariicad islaam sheeganaya warka uu sheeg waxay in dawladdu iyo culimada diinka u istaagaan in la baaro iskuulkii la tago hadday sax tahayna la yiraahdo waa sax hadday sax lahayn la yiraahdo Aldoon waa maasan tahay iftiinkii aan tustay waa soo raadinay wax diinta islaamka wax u dhibay kuma soo arag waa maasan shaqada intaas ku dhamaan laakiin in la xiro oo xabsi la geeyo xabsiga lagu dhex dilo loo diido inuu hooyadiisa aragto loo diido eerkiisa inay arkaan waa wax diinta islaamka quseeyo marka waxaan leeyahay Somaliland ilaahay nabadu inisi Somaliland dad nabadu ilaahay inisi maanta qarax iyo xabada ka cabsoonaysin ma jirto meesha magaalada Muqdisho leeyahay ma nin qarax oo ta kula soo fadhiisanay nabada aad ilaahay inisi dad ku kufrisiin wallahi oo billahi oo tallahi maalmahan waa ka shaleynaysin maalin aan maalmahan waa ka shaleynaysin ilaahay waa qafuur raxiim waana shadiid ciqaab wax walba oo dhacayo qofka la dulminayo ilaahay ayaa og kama qarsoon ilaahay maxaa yeel garbiisa malaaga saar
magaalada gudbinaysa waxa coldoon ku xiran yahay coldoon wuxuu ku xiran yahay shariicad islaam ayuu ku xiran yahay kuma xirna naxiran madaxweyne Somaliland taliye boolis amar kama soo bixin taliyahana wasguud amar kama soo bixin waxa dawladda qusay kama soo bixin abaarsi iskuulka leeyahay ayaa coldoon xirtay waxayna u xirteen shariicada islaamka wax shariicadana ka soo horjeeda in qof muslim oo shahaadanaya oo tukanaya loo xirto maanta waxaan xaq u leeyahay haddii magaalada muqdisho wax ka jiraan oo aan sheeg aan iraado arintaasaa jirta dawladdu waxay xaq u leedahay inay barto maaha ani in la xiro maaha ani in la xiro maaha marka in uu badbaadinayo Somaliland mustaqbalkeeda coldoon wuxuu badbaadinayo mustaqbalka caruurta Somaliland wuxuu badbaadinayo caruurta iskuulka dhigata وحق لها إن قفل بو سومالي المواطن ويراد أرتاس عن كجوان سومالي لاني هذا كريستيان ريبتين كلام يفرط كتاب كجاجها ميل والبقو مساجد كلام كديك تشيشون كل واحد ميل والبقو مساجد سومالي لان هل حلو قفت كده هلوه قلت كريستيان كتوسو قلت لكن هذا ضد مسلمين وحليني كسو يري ووح شريعة الإسلام كحدبي وح شريعة الإسلام كحدبي إلهي رالي كما إلهي رالي كما إلهي واردي سنة يدينتيس إساقا واردي سنة رالي كنقوني سومالي لاني كوان توبة إن ما أنت نين موادن سومالي لاني ما أنت الله شريعة الإسلام إنه إسلام كوح كسو ورجي سكول كاس لو قد يا انتو يري إلا حرم ووح إلهي رالي كاين ووح أمدين رالي كاين سومالي لاني فرينتا إني سوفرية waxay tahay coldoon wuxuu xiran yahay Kristan coldoon waxa xirta Kristan ka soo horjeeda diinta islaamka in la baafiyo Somali laani soo daayo wiilkaas la soo daayo waxa xirta Kristan ka xirta laga soo daayo culimada Somali laani ceeb ku tahay culimo u diinka magaca leh ee Somali laani ee madaxweynaha Soomaaliya musabbiix u tagay haddii Somaliland muslim tahay coldoon la soo daayo iskuulkaasna la xiro waxa maalmaha soo socda kala cadaanay in Somaliland ay sarahayn muslim iyo in muslim tahay maxaa yeelay coldoon Christian ayaa xirtay diidan in waxa uu ka hadlay ani cid xiri karta ma jirto cid xiri karta dawladda Soomaaliya ka tirsan ma jirto haddii magaalada Muqdisho wax shariicada wariya meel meeshaan oo liidin la yiraahdo waxa lagu sheegay gabdho iyo rag shisha iyo oo wax fisqi lagu soo sheegay ciidamada booliiska bari bulshada wixii markii la baafiyay ciidamada booliiska hatta waxay soo afjareen in 6 saac habeenimo meeshaas ay sii furnaad waxay qaateen amarkii meeshin wala burburi taasa sax maaya dad islaam oo tukada oo Soomaan ilaahay waa noo carooniya diin antiisa ahayn hadii la baafiyo ilaahay waa noo carooniya marka waxaan leeyahay Somaliland ka soo noqdo Somaliland ka toobad keena coldoon waa in si degdeg loo sii daayo waa si degdeg oo shuruud la'aan in la sii daayo intuu si ilaahay yacaan maxaa yeelay coldoon Kristan ayaa xirtaana inay sheegay iskuulkaasna waxa lagu dhigo naagta dhigta baraha bulshada la soo dhigo waad aragteen waxay ku shaqeynayso waxay ka hadlayso waad aragteen inay Kristan tahay waad aragteen dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan coldoon waa in garab lagu siiyaa sidii loo soo deyn lahaa وما سنتي وعربا إن أوجد بمرك مجالات مقدشو وسوق بجبيني وعربا إن أوجد جوله ومدعوينه جاري مدعوينه محمد عبد الله في الماجد الله حفظ جوله وجاري واحد تاي مسنانت ولي رابله وحى وسمينا يقولن أن أود الجن أنا قدامي دلني يرد النبض النوران مدعوينه في الماجد وحوسك هاللي نكالله يعني أنا الشيء هدان تايرياشي نودي نولله واحد شركة كسر بحيني بدري واحد شركة كسر بحي إلهي نرالي كمان ومدة الصوماليين نرالي كمان إن قف موادن أنت لودي دليل ما ترتمس هذا صباح مش دين تقرص ما هو دين تقرص إن قف موادن ليلة ما ترتمي كرت ورجع يسيب عملوش ما ترتمي كرت وراني حقا ولا هنا ترتم نكاليل ترتم شيء أتكسيه داربتين لك أنا ترتمي إن اللي يراد ما ترتمي كرب سيسو ماشي على قصة أو الدني واحد وصوصت الدني شركة سي واحد قبته والدني شركة واحد بيان قصة صار والدني أنت كلام الحيس لي عليها واسكت يجي سنين غور يعمر فينيشي واسكت يجي سنين
waxa meeshaasi soo saartay qorshaha lahaa waa dani wuxuuna ka hanaaqay guddiga doorashooyinka heer federaal go-aankay soo saareen ee ahaa in loo daayo beelaha kuraasta iskale cidda ay rabaana ay soo saartaan ayaa laga hor yimid waxaa la yidhi maya maamul goboleedka guddiga doorashooyinka heer federaal guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa maamulay doorashooyinka guddiga heer federaalna koray ay ka wiidanayaan maxay bedeli karaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi uma malaynayo in ay aqalka hoose uu nabad ku soo baxayo wallaahi waxaan u malaynayaa in magaalooyinka dhuusamareeb iyo isheeg maxaa la yidhahdaa garoowe iyo maxaa la yidhahdaa kismaayo iyo maxaa la yidhahdaa jowhar iyo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inay xabad ka dhacdo wallaahi inaan been sheegin iga qora warkaas hadda miya waa maqlaysiin iga qora warkaas meel iga qora doorashadaana hadda ee la sameeyey waxay horseedaysaa xabad iyo dagaal ee horseedaysaa maxaa yeelay beelo ka mida ayaa lagu dulminaya beelo ka mida ayaa kuraastooda la boobaya beelo ka mida dad israa'iil ka ina la soo saaraya tuug intaas sana aniga beesheeda madaxa ku haystay ayaa la diiday ay dadkii beelihii diideen isagii dani rabaa inuu soo saarto isagii ayuu rabaa dani inuu soo saarto iga qora ergaas maanta waa taariikhdu waa maalinteen bal warkayga si fiican u dhegeyso 6 saac waa la gaaray agoosto 25 waa iga qora hadday xalaal ku dhacdo tuug dhalay dhah haddayba xalaal oo doorashadaasi ku dhacdo tuug dhalay soo dhahayn been waxaa inii sheeg waxba kama jiraan wallaahi sax ku dhacayn iyo bilaahi sax ku dhacayn inaan beelaha qaar la boobayo inaysan aqbalayn waa xaqiiqada jirtee saxda in maanta kuraastii dadka islaameed la boobayo inuu qorqoor yidhaahdo mareexaan waxba matiin anaa ninkaa raba inii soo saaray markiis oo garyar la soo saaro ee garyar la yidhahdo xildhibaanata ee cabdirashiid lagu soo saaro ee hiblaayo kastumo lagu soo saaro ee frimbi lagu soo saaro ayaa la rabaa laakiin beelahii ma rabaan beelihii ay ka dhasheen ma rabaan waxay horseedaysaa arrintaas bal warkayga si fiican u dhegeysta arrintaas waxay horseedaysaa qalalaaso siyaasadeed oo horle ayay horseedaysaa ra-iisul wasaare rooblane baal mugdiya ayuu soo gelayaa magaciisii iyo sharaftiisii waa sii xumaanaysaa kadib markii rajadii dalka laga lahaa ee ummadda soomaaliyeed ay raadinayeen in muddo ah ay gacantiis ku jirtay u bolkooda in guddigii heer federaal in la yidhahdo madaxiisayaalatiin ee go-aanka lahaa la yidhi madaxiisayaalatiin soo xaadira dhar soo gashta arooska iska imaada markii lagu yidhahdo arooskan waa maamule iyo markii lagu yidhahdo ismaaciil soo labiso arooska halkaas ka fadhiiso oo aniga kursiga aan fadhiisanahayn xataa uu ninkan arooska maamulayo madaxiislayaala laga dhigay madaxiis waxaan ugu baaqayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo heer federaal inaa iscashisiin maanta opportunity haysateen dalka masiibkiisa gacantoona kugu jira wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dabina dhaglen kuu riday sharaftan waa ninka qaad guddoomiye cirra waxaan leeyahay maanta magaca aad leedahay iyo sharafta aad leedahay waxaa kuu yeelay shacabka soomaaliyeed waxaad ahayd guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee maxamed cabdullaahi farmaajo guddigii uu magacaabay ayaa ku jirta waxaa nasiib u yeeshay markii axmedoobe iyo qashinkay soo aruurayeen xataa in dadkii kale ay ku yeeliyeen ay yidhahdeen cirro ayaa ahaanaya waa nin fiican cirro magacaan iyo heerkaana soo gaartay waxa ku gaarsiiyey dowlad soomaaliyeeda ku timid waxaan kaa codsanayaa oo mar labaad kaa codsanaya oo mar saddexaad kaa codsanaya iscasila adiga iyo guddigiina iscasila waxa meeshan ka socda iyo waxa ay nimankan wadaan waa qashin madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya inaysan dadku u arag finoole waa ka aamusay farahu ka qaaday kama hadlin wax ma dhihin wax kama soo saarin kama soo hadlin xataa hadal ma leh xataa hadal ma jiro xataa ra-iisul wasaare waxaan ka dhacay xataa ma dhihin maxaa yeelay dad soomaaliyeed ayaa waxaa loo tusayaa madaxweynihii inuu kursigii rabo oo kursiga isku dhajinayo laakiin shacabka soomaaliyeeda waxay leeyihin ha naga tegin aabbo ha naga tegin geesigii afrika waa naga dhintay maalintaasaa dalkeenni bohol galay adaa rajal kaa qabnaa haddaana dhallinyarada soomaaliya dowladan ku raaxaysta ma arag maxamed siyaad bare ma arag 21 sano dalkan 30 sano oo dalkan burbursana wax dowlad iyo taraafileed iyo amni iyo ciidankii booliiska budada wata weligii ma arag laamiyadii ii dhisan oo magaaladeeda quruxda iyo bilic ma arag maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimid dalkii dhismay magaalada muqdisho markaad aragto wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa weynisi wallaahi inaan beenni sheegay
warkayga si fiican u dhegeyso warkayga si fiican u dhegeyso dalkan rajo fiican laha midda kale madaxweynaha waxa boosha gali la taliyaashiis wallahi been meeni sheegi madaxweynaha cadow dad caadi iskaga dhiga madaxweynaha dadkii la jiray ama madaxtooyada ka shaqeynay ayaa cadow oo danaystayaal noqdo xilal intee heleen iska fadhiis madaxweynaha ma kula tahay haddii ra'iisul wasaare nabadii nolol la keeni lahaa rooble markii la keenay ayaa lagu qaldamay ninkii keenana waa qaldamay faad yaasiin keenay abar jimcaala keentay ay donker faad yaasiin jimcaala maxay u qosayeen waxay ahayd ra'iisul madaxweynaha waa la hadlay miidiyan ka hadlay madaxweyne ma qaldamay waa ilaahay laakiin ma qaldamay adaas qaldamay nin ra'iisul wasaare oo adig ka dambeeyay oo nabadii nolol in haddii la keeni lahaa maanta axmedoobe iyo dani xaniyaha ilayin ma lahayn ka gudub ra'iisul wasaare gudoomiyaha gobolka hadduu keensan lahaa nin nabadii nolol oo u dhimanay shirku iskaga soo bixina adar waxaan u diin aniga raali kamii nuu kala wadi meeshaan anaa ka tali nuu kala wadi u dhiga warkayga si fiican u dhegeyso wuxuu heli lahaa baawr wuxuu heli lahaa wallaahi wa billahi wa tallahi benishi labada nin ee dowladda ku matalaysay laba nin oo jirta ma ahayn adar anaga ilaahana le yaan ka cabsoonna ciidan ka cabsoonna ma leedahay rooble iyo cumar finish ma lahayn awood ay ku hor istaagaan waxa ay wadaan nimanka laakiin haddii laba nin oo baalkii iyo sheeg maxaa la yidhaha awood leh laba nin oo nabadii nolol hadday dhihi lahayn dani waxaa adar dani waa mahadsan tahay arrintan wax macquul oo la qaadan kara maayo ummadda soomaalidana daawanaysa waxaan rabnaa si nabad in ku dhammaado ciddii ilaahay kursigaan oo u sahlana ilaahay ha u sahla ciddii aan weysana dee awalba calafu ma lahayn guddiga doorashooyinka waxay soo saareen jadwalkii haddaan ka hor imaano ummaddii soomaaliyeed waa baalkii waa la iskhilaafay ma yeelino iyakan ku raacana guddiga doorashooyinka siday sheegeen waaye aan ku dhawaaqno urmurtiyeed aan raano shaqadaha socoto ma fahanta haddii ay diidi lahaayeen inuu yidhahdo anna ma ogoli uu dhihi lahaa ii sheeg maxaa la yidhahda cumar finish uu dhihi lahaa anna ma ogoli ma diidi karaan laba nin oo baawar weyn waay waa ka war fiiri dani caasimadda magaalada muqdisho iyo garow yaa weyn muqdisho weyn ogataan awooddiisii aawey ma jirta awooddiisi ra'iisul wasaarihi marka meesha aan ka dhibanaa waxay tahay madaxweynaha la taliyaashiisiyaa god ku riday madaxweynaha la taliyaashii annakii jaanisa madaxweynihii inta ugu tagno wax ugu sheegno ma hayno 24 sac markaa madaxtooyinka madaxweynihii waa busy 24 sac war laba bilooda aniga hadda madaxweynaha ambalantiisa aan sugaya madaxweynihii boola lagu riday cadow ayaa madaxweynaha hortaagan wallaahi oo bilaahi oo tallayn aan beeshin laba nin oo baawar fuula oo nabadii nolol ra'iisul wasaare iyo cumar finish cid bini aadan hor istaagi lahayd ma waan la diidi lahaa hatta haddii ra'iisul wasaare u ogolaado cumar finish ka soo bixi lahaa kamana qaadi karo cumar finish maxay ra'iisul wasaare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magacaab gudoomiye gobol wadaa adar ma ogoli mana yeelay wixii bayaan la soo saaray shir jaraa'idan qabanay waragay si fiican dhigis aaway meeshan ka baaba'nay meeshan aan ku dhibanay waa meeshaas waxa waa ra'iisul wasaare degdeg la iskaga keenay qaab la iskugu keenay ma naqaano dadku xidid hoose yihiin ma koray balaay ka yihiin lama yaqaan wallaahi oo bilaahi tallahi inaan beeshay arinta ugu foosho xun ay dhacdan waa intaas waxa waa ra'iisul wasaare lagu degdegay wuxuu ku dhaqaaqay waa u jeedin waxa qasmay waa u jeedin gudoomiye gobolkii ma hadlayo meeshu waa iska tagaa waa iska soo noqdaa meesha dhan waxay iska noqotay madaxweynihii labadii nin oo hadli lahaaba labadii ninba laba nin oo la fahmin urnankooda nin meeshan ka baabano ka dhiban waa meeshaas hadaba meesha nin ku lahayn gobolka gidaan la yaabana aan dhahay war keensada ku soo darsada nin aan dhahay labadii nin oo dhinacan laga filayo hada way marka waxa la rabay madaxweynaha inuu wax walba ka tashto waxa la rabay cumar finish in la sii cuno gudoomiye gobol la keeno la yiraahdo meesha aad jooga aniga waxaan ku magacaabaya gobol iyo ma jirto shaqadaada waa guddi waa shirkaana tagay bayaan aan sidaas ayaan duka soo faatax dhaal ku soo qalat soo diid isaga noo shaqeynaa maanta madaxa la isku jira adar marka waxay noqon lahayd shaqada hal baabi guddiga doorashooyinka la raaco meesha aan ka baaba'nay oo aan ku dhibanay oo aan ku wareernay waa meeshaas laakiin micno ma ilaahan leena markay si fiican dhigis ilaahan leena daacad baanahay dalkan iyo dadka waa badbaadigan wallahi inaan been sheegay yaa la rajatirin
yaa la israjir madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uma malaynayo in laga guulaysanayo maxaa yeelay midii aan arkanay oo aan quusanay oo aan ilaahay baryanay oo iska qeylinay si dad waalan war maalintiin war xafada maxaa waay war barnaamij maxaa waay in la iska barnaamij rajadiisa ahayd boqolkiiba 30 sheekh shariif iyo xashiina boqolkiiba 100 rajada uu lahaa madaxweyne farmaajo maanta rajo aan ka cabsoonay maxaa yeelay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed waa u jeeda dalkan maanta meeshuu joogo xaaladda uu marayo qaraxyadii shabaabkii dilalkii abaartii koronihii dhismihii magaalada shaqaalihii ciidanka la dhismay shaqadii dawladda socod qof bini aadan ay ka qarsoon tahay habeeraatay ma jirto qof bini aadan ay ka qarsoon tahay wallahi oo billahi ta'ala ma jirto warkayga si fiican dhigay maxaa yeelay maanta ma qabo tuu ku guulaystay mid ka qurux badan ka sii qurux badan oo ii xaqiijinayso inuu madaxweyne yahay inuu kursigan isaga la ku fadhinayo oo madaxtooyada sii joogay waa ii muuqataa bani shaki ma iga jiro wallahi shaki ma iga jiro sababtoo ah meel aan laga soo bixi karin ayuu ka soo baxay meel aan u jeedno oo lacagtii iyo tuugnimadii iyo xildhibaanada la soo saartay xildhibaan la doortay ma jiro iyo xildhibaan tartar waa la iska soo daldalay waa la iska soo aruursaday iyakii ayaa markii dambe arkay xaqiiqada jirta in dalkan la badbaadiyo waxay yidhahdeen haddaan ninkaan sii doorano baashaan meel ka xunay gelisa aan baashaan ninkaan doorano farmaajo iyo kaa doortay maanta marka farmaajo yaa waay farmaajo miya madaxweynihii 4 sano ee hadda dalka soo hogaaminayso isaga maaha muxuu qabtay muxuu sameeyey dalku xaaladiisa caawa in la hadlayo waa sidee amniga dalku waa sidee waxaa la rabaa in baasha runta laga sheego haddaan runta laga sheegin baasha way dhabaqa beelaysaa niyo haysta waa inii soo dirayaa messengerka ee whatsappka igala soo hadla haysta waa inii soo dirayaa hadduu ilaah yidhaahdo maxaa yeelay niyo aadan biis u noqday inkiina messengerkii aad ku soo dirteen anigana habeenkii ma aragba dad badan marka hadda qof walba waxaan leeyahay lamarkayga whatsappka igala soo hadal dad badanna waa u sheegay haysta waa inii soo diraya marka insha allah waa la guulaysanayaa rajadu way dhowdahay ama xaar ha la walaaqo ama dhuusaha walaaqaan waxay rabaan ha walaaqaan maxamed cabdullaahi farmaajo waa presidentiga soo socda ama tuugnimo iyo balaayo iyo musuqmaasuq iyo babababa raadi waxayna caddaynayaan inuu madaxweynaha yahay cid bini aadan u diidi kartana male maxaa yeelay waa xalaal quudata ah haddaan maanta madaxweyne xalaala oo xalaal quudata ah oo dhalinyaradii ciidanka ee maanta laamiga taagan mushaarkooda siinaya xataa 24 bil walba caawa warbedaadii wargeysi baan dhigis jaa already waa qaateen 25 xalay la qaatay kulli xalay wada qaateen 5 bariya bish ka dhiman madaxweynaha maxaa yeelay waxaad maanta haysataa fursad fiiriya dadku waxay ku leeyihiin nina hadda kor wuxuu yiri niyow markaan lacagta haystay oo xoog galaha talamay warkay si fiican dhigis maanta markuu sariirta kor wuxuu yiri adar cilmiga ilaahay igu dhalay maxaa yeelay qof xalaalana baasho iga soo guuxaysa awaan maahay aniga laakiin baasho iga soo guuxaysa wuxuu yiri maanta markii aan xoog beelay ayaan talahayaa way faanteen uma soo kugu celinaya nin wuxuu ahaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa xoog badan oo lacag haysta laakiin wax tala uu lahaa habeerata ma jiro tala dhan meen maanta markii uu sariirtii ku dhacay uu tawar beelay oo soo waxba qaadi karin oo eber noqday ayaa talo ay u timi maxaa wax lagu qabanaya marka wuxuu yiri markaan aan xoog hayna tala meen markaan xoog beelana talo wahay warkayga si fiican u dhageyso marka maanta aan u jeedno waxa la rabaa qofka waxa uu ku sheegay fahanti maanta aan u jeedno wacyiga dalka ka jira xaaladda dalka uu maray gaaladii dalkan iska daldalan jirtay ciidankii badda la dhisaya ciidankii cirka la dhisaya elborro waaweyn la dhisaya Somali Airline soo socota baddeenniyaan ku guuleysanayna shidaalkeenniyaan qodanana saliideenniyaan qodeena adduunka qaniyan ka noqonayna waxaan noqonaynaa in dadka Soomaaliyeed guryahooda lacag lagu siiyo oo akoon intii loo sameeyo loogu rido bilow warkay si fiican dhigis rajadaas maanta ninkii naga beel dareeya oo maanta nin jaajuus oo Ethiopia Kenya
iyo isheeg imaaraad u shaqeey oo carab u shaqeey dalka raba inuu u dhiibo cadaabta allah kugu fogeey cadaabta allah kugu fogeey adduunkana allah kugu ciqaab kuma dhahano beerka allah kugu dhufto ku dhiimeen adduunka allah kugu ciqaabo adduunka allah kugu ciqaab haddaan ninaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo codkiisa aan siido wallaahi oo bilaahi oo tallahi maxaa yeelay waa xalaal adar anigu maxamed cabdullaahi farmaajo ku qabiil mee lacag ima sii xil ima sii anaa nolosheedii mustaqbalkaygu soo bedeldaray maxaa yeelay caruurtayda mustaqbalkiisu gacanta ku haya hadduu isaga iga tago anigaa mustaqbal la'aan noqday caruurtaydana mustaqbal la'aanay noqonay marka waxaan u imid in caruurtayda aan mustaqbal aan u yeelo maxaa yeelay ninka keliya caruurta lagu aamini karo waa isaga ninka gabdhahayna lagu aamini karo waa isaga ninka magaaladeena hantidayna lagu aamini karo waa isaga xildhibaankii marka u yimid ee ilaahay maanta guuleysiyey anigu waan u xildhibaanadii ka soo baxay galmudug waa huba 4 xildhibaan galmudug ka soo baxday iyo 8 xildhibaan ka soo baxday koonfur galbeed waa huba warkii 12 xildhibaan oo xalaal waa haysta dhagay iyo dhagdheer aniga codka waan rabo shalna codka meel maantana codka maro warka waxa qofku caadiya warkiis dhagay iyo dhagdheer waxaan leeyahay quraasaan iska fadhiya intii ilaahay mursade iyo dible aqliga u soo siyaadinayo oo quraasaan dad in la tartama in siiyo warkayga si faacan dhageyso warkayga si faacan dhageyso xildhibaankii marka rajeynayay inuu intuu xildhibaan noqdo maanta uu orday inuu lacag intuu qaato oo codka nin kala siiyo adduunka allah kugu cadaab adduunka ilaahay adduunka kugu cadaab ay kaadida saxaraha lagaa qaado maxaa yeelay xalaalana ku dhalay inta daadana jira weligii dowlad ma arag qarax bush bub aan ku jira naxadin aan ku jira maalin walba qof la dilay ayaan ku jira ninaa maqaayad intuu tagay soo qarxiyaan ku jira nolosheen iyo mustaqbalkeen sidaas ku dhamaan allana waraniga naga fiiriya duqaye malisguin meesh alli walka carra mustaqbalkeen cabsi iyo markaan guriga ka tagnay inaan weysayso arkaata qarsano ilaahu naga badbaadi amiran aan maalin walba albaabka uga baxna oo wallahi billahi taala walaadana soo wacay war xagee joogtaa hee qaraxa dhac war ma noosha nina la dilali dadkii wadna xanuunaya caruurteeni marka inay sidaas noqdaan marrab inay sidaas noqdaan marrab xildhibaankii marka ku fakaraya annakii mustaqbal la'aanta nala dhigay in caruurteeni inuu mustaqbal la'aan u dhigo adduunka allah kugu cadaab adduunka garbeyga malaa'iga saaran xalaala leegu dhalay hadalkan ku hadlaya xalaalu iyo haddaa nin kale aad codka siido ii sheeg maxaa layidhaha maxamed cabdullaahi farmaajo maayo naarta allah kugu fogay adduunkan allah kugu cadaab maxaa yeelay 30 sano ayaan ku jirna cadaab iyo qahr iyo kufs iyo dil iyo dhibaato iyo waddo jajabsan iyo corona iyo ii sheeg maxaa la baahi lacag laan waxaan ku jirna waxaan laga sheekeyn karin haddaa rabta inaad nagu celiso foolxumadii iyo qabiilkii oo nin intuu ku soo saaray dani la yidhaahdo uu ku yidhahdo codka nin kala sii dani aakhiro kuma raacayo dani aakhiro kuma raacayo hooyadaadii ku dhashay macanaa ee naas ku siinaysa dhabta kugu haysana aakhiro kuma raacayso keligaa lagu cadaabaya haddaa is leedahay marka dembiga gal lacag qaado codka nin kala sii waa dhimanay astaada may ma dhimanaysa adduunkaa lagu cadaabaya adduunka ayaa lagu cadaabaya 30 sano warkayga dhegeyso 30 sano hadda ka bacdi kaadida xaarka laga qaadaya oo cuntada dabada laga siinaya oo afka laga siinaya oo mar kalida laga dulilinaya mar xabadka laga dulinaya marna afka laga dulilinaya ilaahan ka barinay ilaahay cadaabta allah kugu fogay hadda dalkan dib dambe aad u geliso dhibaato maxaa yeelay dalkan dhibaato ayuu ku sii socdaa dalkan dhibaato ayuu ku sii socdaa dadaan raba inay mar kale nagataan dadaan raba mar kale in Kenya ay dhulka soo qabsato mar kale wadamo kale anaga waraa diyaarada dalkeen iyo caruurteen ku korbaraaweyn oo maalin walba gobolada gado lagu leynay oo yaasheen iyo habriyaasheen iyo ilmiya abtigu lagu leynay marka ninkii rabow inaad baalkii ii sheeg aan intuu codka siido adduunka allah kugu cadaab naar jiximana allah ku geli daada aad jirto dad 50 sano aad jirto 80 sano 30 kale cadaabta isbedkaada laga qaado sariirta warkayga si fiican dhigeyso caafimaad iyo daawona ilaahay kuma sii maxaa yeelay dalkeeni dhibaato ku jira da'daana ku jira madaxweyne farmaajo xilo uma hayo xafiiskiis kama tirsan lacag ima siiyo keliya mustaqbal la'aantii aniga u dhacday inaysan caruurteeda ku dhicin waxaanu ordaya u dadaalay inaysan caruurteeda aysan arqalax waxaan rabaa
hadduu ilaahay nafta baaqi nooga dhigay in guriga caasi looga qaado iskuulka lagu keeno magaalada uu maro in ay noqdaan dhalinyarada la yidhahdo isbartibada jirta ay tagaan ay isbartibada soo daawadaan inay qarankooda u sacbatumaan wejiga calanka dharkan loogu buufiyo waxaan rabaa in qadiyad fiican ay bartaan inaysan arag reebelaata in la yidhahdo soomaaliya ku dhalatay calankaaga waa soomaali madaxweynahaagana waa farmaajo in la yidhahdo waxaataa ciyaaryahan soomaaliya qaranka soomaaliya usoo dheer ayaan rabaa in la yidhahdo reebelaa tahay hawiyaa tahay iyo waxaa ka tahay reebel iyo sacdaa tahay iyo ceeraa tahay iyo suleymaanaa tahay iyo ma rabo waxaan rabaa cunugayga inuu muwaadin soomaaliyeed noqdo qarankiisa wax u barto qarankiisa u shaqeeyo ciidan noqdo askari noqdo dalkiisa u shaqeeyo markayga si fiican dhegeyso marka waxaan u taageeraya waa middaas marka ninka keliya ee maanta dalkan iyo dadka badbaadi kara waa isaga marka xildhibaanow hadduu ilaahay kursiga kuu saayo waxa socdana aad u jeedi dani wuxuu raadinayaa u jeedi axmedow wuxuu raadinayaa u jeedi inay soo saartaan kuwa wacallaa oo hooyadoodii aabboodii is xalaal isku dhalin markayga si fiican dhegeyso waa waxa iyaga rabaan haddii laakiin xildhibaanada sharafta leh ee baalkii jubbaland ee kismaayo la soo saari lahaa dhalinyarada aqoon-yahanada iyo gabdhaha aqoon-yahanada ee galowa joogta haddii lasoo saari lahaa cid bini aadam diidan ma jirto waa soo dhaweynaya haddaba kuwii la soo dhaweeyey soo dhawaada nina caasimadiini magaalada muqdisho lagu soo dhawaada wacyi cusub iyo jawi cusub iyo dal hormaray iyo barwaaqo ku soo dhawaada codkiinana waa leedihi warkayga si fiican dhegeyso qof walba oo xildhibaana ee baarlamaanka soomaaliya ilaahay u saaloo soo dhaweynana wixii aad samaysatana ilaahay la tegaysaa laakiin waxaan leenahay soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow caasimadaada ku soo dhowow doorasho xalaalo ku soo dhowow adduunkan dalkan iyo dalkan inaa badbaadisid ayaa laga rabaa xildhibaanow dalkan iyo dadkaba inaa badbaadisida laga rabaa 30 sano way dhegeysanay waana ii jeedaa waana ii maqlay codkaygana waa ku soo gaaraya dalkan iyo dadkan la badbaadi dalkan badbaadi u baahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay meel dheera laga keenay hal maalina 7 wasiir iyo 3 agaasibaneel kadib qamar iyo hotel shamu 7 wasiir ana la kadib one day waxay u socdeen ilmihii dadka dalka wax baranay ee burburka wax ku baranay inay intaasoo kun oo dhalinyara anooga dhimatay insha allah dalku waa badbaadaya insha allah hadduu ilaahay khayr baan kaga tegay haddaad igu cusub tahay mar labaad mar saddexaad youtube-ka meesha kale u saarayaan subscribe saar gamaraalka fur leeraysaa dalkan insha allah waa badbaadaya madaxweyne farmaajona waa soo noqonaya insha allah haddii nafta baaqi noqoto rajo fiican aan leenahay yaan la welwelin xaarkooda ha walaaqdaan waxay rabaan ha walaaqdaan insha allah cabdicays laftigreen waa noo jooga cabdicays laftigreen aa noo jooga qoorqooraa noo jooga cali guudlaa waa noo jooga xildhibaanada gobolka banaadir aa noo jooga kuwa gadaa noo jooga soomaaliya oo dhanna waa joogta waxba yaa la cabsoon dani iyo axmedow waxay walaaqanayaan waxba ma soo kordhinayaan warkay si fiican maxaa yeelay xildhibaanka hadda uu soo saaray waa ogyahay beri inuu ka tegayo ilaa kuwii axmedoobe taageerayay iyo kuwii dani taageerayay intaba waa ka tageen rag kaley soo saarteen marka xildhibaanadan hadda puntland ee la soo saaray way ogyihiin inuu berito dani u bedelay marka oo ku qasban yihiin inay codka madaxweyne farmaajo siiyaan si u badbaadaan warkayga si fiican u dhegeyso marka insha allah haddii ilaahay cimri dheer iyo caafimaad uuna siiyana waa wada joognaa doorashada magaalada muqdisho inay joogaan ma tegay laakiin habeenka farmaajo la doorto subaxdeeda tigidaan qaatani habeenkii farmaajo la doorto subaxdeeda tigidaan qaatay aniga hadafkayga waa gaaray ilmahayga mustaqbalkoodiina waa gaaray warkayga si fiican u dhegeyso waa duulaya dalkaygaan ku noqonaya waa soo shaqaysanaya dalkaygii labaad ingiriiskan ku noqonaya waa soo shaqaysanaya waa soo nasanaya waa seexanaya saasaa u hurdaya insha allah hadduu ilaahay insha allah ballanteenu waxaa waaye inaan kaambeenka ka wada qayb qaadano dib u soo noqoshada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee kaambeenka soomaaliya ee socda ee ilaa 8 february ilaa hadda aan wadno qof walba waxaa leenahay haddaa muqdisho joogto nagu soo biir guul iyo gobonnimo ayni rajeynaya meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waa arrintaas ma jirto axmedow arrintaas ma jirto wax sacuudi la aad anaa wixii dhici doona alla og laakiin magaalada muqdisho aan joognaa ma ogin qoorqoor waa baxayaa turkiya u socda arrimo qalliin iyo waxaasaan maqlay wuxuu aadayo arrimo caafimaad awgiis laakiin cid kale oo socoto ma arag waa suganaa anigu ma qaban ku dhawraan kugu sheeg anigu aankay wacdiya ra'iisul wasaare Roble ma aadayo sacuudi axmedobi dan uma raacay maxaa yeelay aqoontiisa cilmigiisa iyo nin fiyow oo dalkan lagu aamino waa ma u maleynayo foolxumadii uu fiirsan jiray ee Brussels ka dhacday
uma malaynaya inuu u raacay sacuudi maxay sacuudi ka doonayaan yey matalaan markay sacuudi aadayaan dalka iyo dalkaba madaxweynaha xukumee oo Puntland madaxweyne farmaajo xukumee waa barsaab meel iska jooga dani sababta uu sacuudi aaday maxay tahay haddii ra'iisul wasaaraha maqaamkiisa intuu ka tago maqaam nooc kale uu gaaro oo sacuudi u raaco maantaas ka jawaabina laakiin hadda ra'iisul wasaarahayna sharaf uu leeyahay ra'iisul wasaarahayna waa ammaananta ra'iisul wasaare doorashada aad wado waad ku ammaananta endigeedan sugana insha Allah hadduu ilaahay waa suganaa xildhibaanada sheekada si ku dhamaato waa suganaa hadduu ilaahay yiraahdo dadka iyo dalkaba waxaa la yaala niyajab waxaan sacuudiya la aadaaba aniga ma malaynay waraan kugu sheeg aqoonta ra'iisul wasaaraha uu leeyahay uma malaynayo anaan samayn lahayn isaga iska dhaaf dani hadduu ilaahay adiga kaliya ku raacata ay raacina dhiira sababtoo ah waan ogahay waxay dadka Soomaaliyeed ay daawanayaan ay fiirsanayaan war ra'iisul wasaaraha dalka marka alla isdajiyo waxaas waa warso YouTube lagu kacsanayo oo wax iska sheeka laakiin waa sugana wixii la sheegayo waxa ka jira laakiin waa sugana kama hor dhacno wixii dhacaya xaq ilaahay ka qorin laakiin waa sugana yaa la degdegin guul baa in rajeynaya haddaad igu cusub tahay mar labaad mar saddexaad YouTube ka subscribe saar gamalka furleegna saar isku filan sharafay ii tahay haddii aad ra'iisul wasaare Roble taageeraysid inaad daawatid aad u mahadsan tahay وما سنت وما قال إنه ديد مديس عم مشيجس ديد مديسة وانك كلية حلاشة اللي بانضي ترتمي وبياو اللي بانضي نوضي نول ضد ترتمي مركع قوا بياو أفرتني اللي كونتن مذا كان تضباطن يسقال مذا وبكس كده بدوادين كونفور قلبيت وح كده حتى قلمي ذكما دي أنا هذا الرنا يقول ماي قلمي ذكما رح ليانا كده أنا هذا ركيا اللي بانضي نيكل وادين وذا ركسي marka waxa meeshaas ka dhacay iyo xagga wixii ka dhacay waa faabi kaldiri koonfur galbeed sharaf iyo ciise ay leeyahay bayaankan hadda la soo saarayna waaba diiday Cabdi Lafta Green laakiin maxay soo korinay hadii laga bato wixii la wasiin waan salaamiya guul baa in rajeynaya meel walba joogtay waxaan leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh